in ay ogaadaan in aan ka shaqayn doono dantooda oo ayna marnaba dhacaynin wax haba yaraatee shacabkaas iyo maamulkoodaba lidiko aynaan ka shaqayno kuma aynan riyoonaynin in maanta halka la kala joogi doono. waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doono xallinta tabashooyinkii. ugu horreyn waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabadda 26 Juun ee ku beegan 62 guuradii ka soo wareegtay markii gobollada waqooyi xorriyadda ka qaateen guumaysihii Ingiriiska, isla markaana ah markii ugu horreysay calan laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor. halgankii dheeraa ee loo soo maray hanashada xorriyadda aynu ku naaloonayno maanta ma ahayn mid hadiyad lagu helay ama sahal inagu soo galay, ee waxay ahayd mid naf iyo maalba loo huray. dadaalkaas dheer ee halgankii xornimo doonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen, waxayna u hureen dhiigooda libta 26 Juun. ayaga ayaana si gaar ah astaan ugu ah midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfureed. reer waqooyi la'aantood ma suurto gasheen. awlaaddii halgamayaashii xorriyadda iyo midnimada keenay waxaan ogahay halka ay maanta joogaan iyo duruufaha qasbay in la kala fogaado. halgamayaashii 26 awlaaddoodii runtii kuma aynan riyoonaynin in maanta halka la kala joogi doono. waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doono xallinta tabashooyinkii si loo helo Soomaali heshiis ah oo mustaqbalkeeda wadajir ku xallisata, arrimaheedana guul la ku gaarta si wadajir ah. walaalayaal, ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo aan caawa inala joogin munaasabaddan waxaa ka go'an in si dhab ah loola galo wadahadal walaalaheenna reer waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raalli gelisa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaan habeeniya maalin haddii Ilaahay yiraahdo ka shaqayn doonaa isu furidda quluubta dadka Soomaaliyeed iyo inay wax wada yeeshaan inta aan la gaarin siyaasadda oo dhici karta inay muddo qaadan karto. waxaa ka horeeya in dadka walaalaha ee Soomaaliyeed ay wax wada yeeshaan. waxaan ula jeedaa inay wax wada yeeshaan maadaama ay wax weyn ka dhaxeeyaan labadii gobol, maadaama dadka Soomaaliyeed ay walaalo yihiin oo ay isku xiran yihiin dhinac walba. waxaa lagaba maarmaan ah in la ilaaliyo Soomaalinimada iyo walaaltinimada. wax kasta oo keenaya in booga jiray la damqo waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalin doono. waxaa kaloo ballan qaadayaa in xukuumadda aan anugu hormuudka u noqon doono in ay keeni doonto tabo iyo siyaasado isu soo dhaweynaya labada gobol iyo labada shacab ee walaalaha ah oo halka shacab dabcan isku ah. waxaan rajaynayaa in ay dadka walaalaheena ee reer waqooyi ay niyad samaan naga fishaan. waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan jecelnahay. waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan ka shaqayn doono dantooda oo ayna marnaba dhacaynin wax haba yaraatee shacabkaas iyo maamulkoodaba lidiko aynaan ka shaqayno. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan kusoo gabagabeynayaa
62 sano kadib waxaan filayaa in uusan inagu jirin qof raalli ku ah meesha aan maanta taagannahay inaan taagnaan ma inagu jiraa cid raalli ku ah 62 sano kadib inaan oo xorriyad haysanay inaan dhahno waan baahannahay waan gaajaysannahay waan dhibanaynaa sax ma aha isbeddel baan rabnaa isbeddelkuna wuxuu ka imaanayaa qofka naftiisa marka hal la isbeddelo diyaarna ha loo noqdo inaan iswada beddello kulligeen aadna waad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu